بسم الله الرحمن الرحيم. welcome back mar kale iyo casharadii imtixaano ahaa waxaan ku dhex jirnaa cutubkii shanaad oo aan bilownay waxaan soo qaadanay laba cashir kawaakii saddexaad marka hore waxaan wadnay sheeg qorshaha in aan marka hore overview idin siiyo chapter 5ka iyo soo u shaqeeyo iyo wuxuu yahay kaas waa ka soo hadalnay qaybta labaad waxaan ka soo hadlay contentskiisa chapter 5ka yani imaan doono had maanta bilowga ah inta koobnaan doono oo runtii aan dul maray chapter 5 waxaa loo yaqaanaa soo jeedaanba survey probability concept waa conceptiga ama idea-da in la fahmo waxaa loo yaqaan probability-ga daraas sharaxnayba waxaa loo yaqaan ixtimaalaad carabigiisa Soomaali waa itmaal waxaan aad waqti badan geliyay inaan fahmno dad badan ay ku wareersan yihiin farqiga u dhexeeya statistics iyo probability-ga runtii aad u sharaxay qofkii u baahan chapter 5 qaybtii koowaad ka soo daawo kadibna qaybta labaad waxaan kaga hadlay chapterkan shanaad inta qaybo ka kooban yahay gudihiisa markaan dhex galnay one by one oo dul istaagay laakiin waxaan rabaa maadaama si guud aan u sharaxay inaan haddana dul istaago maxay one by one dul istaago haddana xer aan dib u laabto chapterkan intaanoo goals ayuu leeyahay yes intaasoo goal ayuu leeyahay chapter 5 qaybtii labaad ayaan kaga hadlay one by one ayadoo overview ah oo runtii aan dul maray laakiin haddana xoogaa sharaxay laakiin maanta waxaan rabaa inaan sharaxo one by one mid kastaba asigoo diyaarsan oo slides ah oo la fahmi karo si marka u noqoto qof maxay ID fiican ka haysto probability-ga ay soo shaqeynayo iyo inta loo qaybin karo intaas marka ayagoo si guud aan u sharaxay waxay ku jirtaa chapter 5ka qaybtiisa labaad ka soo daawo haddana bal aan dul istaago one by one ayadoo wataan tusaale example waa tusaalihiisa okay waxaan ka bilaabi doonaa waxaa ugu horeeyay inaan define gareeyo probability-ga ama la tacriifiyo probability-ga saan hore u sheegay probability-ga waxaa la sheegaynaa lagu cabiraa suurtagalnimada oo ku dhici karo shay simple probability-ga waa suurtagalnimada oo ku dhici karo shay tusaale soo qaata marka tusaale ahaan waxaan rabaa in aan galabta aan tago xaafad x la tago okay fine marka waxay tusaal leeyahay question hal xaafad hebel inaad tagto jaaniskeeda ka waran suurtagalnimadeeda ka waran wallahi galabta markaan jaaniskeeda fiiriyay markaan mashquulkii waxa markaan fiiriyay jaaniska aan ku tagi karo galabta xaafad x hebel waa 90% waa soo marka 90% kaas waa suurtagalnimada ee ku dhici karta inaan tago xaafadaas marka probability-ga just waa cabirka in la cabiro suurtagalnimada wax ku dhici karaan inaan xaafad hebel inaad tago inay waxaas dhacaan suurtagalnimada 90% marka 90% kaas probability waa marka filan la fahmay waxaa laga wadaa probability-ga in la sheego suurtagalnimada oo ku dhici karaan shay tusaale ahaan imtixaana gashay imtixaan kadib ayaa imtixaanka gashay imtixaanka u fududaa runtii waa galay waa ka shaqeeyey okay marka imtixaankaas inaad baasto boqolkiiba meeqood okay imtixaankaas markaan wixii aan qoray aan dib ugu laabtay aan fikiray imtixaankaas suurtagalnimada aan ku baasi karo 95% waa maxaa soo haray 5%na in dhaca laga yaabaa marka jaaniska aan ku baasi karo inaan baaso inay ku dhacdo 95% waaye inaan fail garoobana 5% waaye marka probability-ga waxaa u naqaanaa suurtagalnimada ay ku dhici karaan shay walba tusaale election مثلا A iyo B tartamay waxaa مثلا master A inuu ku guuleysto musharaxnimada 99% marka suurtagalnimada inay dhacdo inay hirgasho guusha master B 99% waaye inay dhici weyso 1 waaye marka 99% kaas waa probability waa ihtimaal waa suuragalnimo intaas qoran iyo tusaalada horan
qaarna waxay dhahaan probability-ga waa qiimo u dhexeeyo 0 ilaa iyo 1 maxaa u dhexeeya 0 ilaa iyo 1 waa value يعني وفالue u dhexeeya mararka qaar waxay ku tacriifaan probability-ga waa qiimo u dhexeeyo 0 ilaa iyo 1 marka maxaan ka wadnaa hadduu shayga suurageli waayo waa 0 hadduu shayga suuragal waa 1 laakiin waxaa u dhexeyso qiyaas markaa okay shayga مثلا markaan saadaalinayo saadaasheedu waxay u dhexeysaa between 0 ka sareysa 1 ka hooseysa marka okay markaan dhaho inuu shayga suuragalo 99% waayo hadduu shayga suuragalo waa 1 waayo hadduu shayga suurageli waayo waa 0 waayo laakiin in wax u dhexeeyo just waa qiyaas waayo si kale u sheego مثلا waxaan rabaa inaan dhaho imtixaanka inaan baaso 98% waayo 98 see loo qoraa 0.89 aniga maxaa sheegnay probability waxaa u dhexeyn doonaa 0 ilaa iyo 1 ay u dhexeeyaa soo ma yani 1 ka badan ma jiro probability-ga wax 0 ka yar ma jiro oo minus ma jiro waa between 0 ilaa iyo 1 waxaa u naqaanaa wax markay suuro gasho waa boqolkiiba boqol wax markay suuro waa boqolkiiba boqol see loo qoraa waa boqolkiiba boqol waa 1 wax hadday suurageli weyso waa eber boqolkiiba waxay noqotay eber wax marka inay suurageli weyso eber waaye inay suuro gashana boqolkiiba boqol waaye laakiin maxaa u dhexeeyo qiyaasaad qofka marka wuxuu dareemayaa haddii aan 1 u sii dhowaado rajadeeda fiican haddaa 0 u sii dhowaado waxay sheegs inaa weeyo badan tahay مثلا markaan dhaho imtixaanka inaan baaso boqolkiiba 98 soo qoraa boqolkiiba fiiri 98 boqolkiiba markaan ka dhigo jajab waa 0.98 waay marka boqolkiiba 98 boqolkiiba ayaa laga yaabaa imtixaankaas inaad guuleysto waa 0.98 maxay u dhowaatay 1 marka dee 1 u dhawaato inuu shaygaas suuro galo ayay badan tahay haddaa u dhawaado 0na shaygaasi inuu suuro galo way adag tahay tusaale ahaan imtixaankaas inaad baaso boqolkiiba 1 waay boqolkiiba 1 inaan baasto imtixaankaas see loo qoraa waxaa loo qoraa 0 eber dhibic eber 1 marka 0.0 ka muxuu u dhawaaday 0 ka muxuu u dhawaaday 1kii marka kan inuu suuro galo ayaa badan because 1kii u dhawaaday kan inuu shayga suurageli waayo ayaa u badan tahay because waxaa u dhaway maxay 0 marka haddii 1 loo dhawaado shayga inuu suuro galo ayay u dhowdahay haddii loo dhawaado 0na in shayga suurageli waayo ayay u dhowdahay marka xaggaan kaga baxnay probability-ga waa qiimo u dhexeeyo 0 ilaa iyo 1 haddii shayga ay action ka dhaco marka it can be 1 or it can be 0 hadduu shayga sida u noqoto waa 1 haddii la waayo waa 0 laakiin inta u dhexeeyo waxaa loo yaqaanaa emotional expression مثلا galabta inaan hebel la kulmo waxaan galabta inaan kula kulmo boqolkiiba 99 waay maxaa soo haray boqolkiiba 1 marka maxay u dhowdahay inaan kulanno ayay badan tahay that's my emotional waay aniga emotionkay ama saar rabo waxay tahay inaan kula kulmo laakiin hadday suuro gashana waa 1 haddaan kulli waana waxay waa 0 laakiin inta u dhexeysa waxaan naqaan waxay in la qiyaaso shayga qofka meesha ka taagan tahay ama inuu qofka dareenkiisa qiyaaso walaahi shaygaas waxaan jeclahay inuu boqolkiiba 1 yahay macnaha shaygaasi waa shay liita waa مثلا fiiri galabta inaan ku imaado boqolkiiba 1 waay haddaan ku dhawaxay boqolkiiba 99 macnaha ma ku imaan karaan inay ku imaan karo waa chance aad u yar waay laakiin haddaan مثلا boqolkiiba 99 ku imaanaya maxay baan tahay inaan ku imaado marka in la qeexo in la sheego feeling-ka maxay inuu shay dhaco laba kala tahay inaan shay qiyaaso inaan feeling-ka qiyaaso waa between ever ilaa 1 waay laakiin action ku dhaco haddii suuro gasho 1 waay haddii la waayo waa ever okay marka waxaa loo qeexay waxaa jiro probability-ga wuxuu leeyahay 3 qaybood waa classical empirical iyo wuxuu lahaan doona maxay subjective kuwaas waa soo sharxa gudaha sii galo 1 by 1 hadda waxaan sheegnay probability-ga waa wuxuu u dhexeeyaa ever ilaa iyo 1 waa ka marka shayga markuu suurogelaynin waa ever markuu shayga suurogala maxay waa 1 kan waa sure to happen
shaygaas inuu suurgalayo waanu hubaa shayga inuu dhicayn waanu hubaa waa laakiin intuu dhicays maxay waa jaanisada ay ku dhici karaan share kullama ay shayga sii fogeeyo ay sii kordhiyo wana u dhaweey maxay waa kullama uu shayga suurgalo kullama eber waxaan soo aaday maxay waa kullama shay oo suurgali karin waa waxaa jiro experiment iyo event iyo outcome saddex shay waana inay jiraan waa ka marka simple soo koobo experimentiga tijaabada waaye outcome kana wixii soo bixi lahaa waaye eventigana wixii dhici lahaa waaye tiirana sharaxay haddana soo koobo tusaale oo fudud aan qaato مثلا laadhu haystaa laadhu isma kaan tuuro wuxuu ku jiraa experiment tijaabo ku jiraa yes laadhu markuu hawada ku maqan yahay eventiya suurtagalka kan waaye maxaa dhici karo inuu laadhuus oo markuu soo dhaco inuu keeno 1 2 3 4 5 6 kaas events waa مثلا laadhu wuxuu dhacay number 5 kaasi outcome kaaga waa tusaale imtixaana gashay waxaa ku jirta tijaabo kan waa imtixaankaas maxaa suurgala ima fail or pass imtixaanka waa baastay outcome kaaga very simple kadib waxaa inoo xiga maxay waa ka marka tiyada shayga laadhu markii laadhuga la tuuraayo waa ka marka tijaabada xawaa experimentiga waa laadhu markii la tuuro waa waxaa dhici kara maxay intaas shay waxaa dhici karo 1 2 3 this waa events waa outcome ka marka yes waa saddex approach am saddex qaab ayaa loo sameeyaa maxay markii la xisaabinayo probability-ga mid waxa uu naqaanaa classical mid waa empirical midna waa subjective probability waa okay classical kaas bal aan gudagalno soo qoran waa ka marka kan waxaa ku heli karnaa shaygii aan u baahneed intuu yahay oo loo qaybay guud ahaan tusaale halkan waxaa ku jirto kubado ama calories very simple marka calorieskaas waxay lahaan doonaan waa kubado waxay lahaan doonaan kalaro maybe qaarna waa guduud maybe qaarna waa blue maybe qaarna waa green okay soo marka tusaalaha marka waxaan ka rabaa marka janiska okay kubada waa 1 2 3 4 5 6 7 8 sideed kubadood oo meel ku jira oo kala duwan leh waxaan rabaa inaan gacanta gashto aan soo baxsado maxay mid ka mid ah kubadaas laakiin waxaan rabaa inaan cayimo kalarkoo noqon doono iyo janska marka okay sideedan kubada waxaan rabaa inaan gacanta gashto aan soo saaro kubad cagaar ah marka maxay noqon doontaa probability-ga suurtagalnimada janiska ihtimaalka haddii aan gacanta gashto aan ku guuleysto kubad cagaar ah maxaa mari doonaa classical way muxuu leeyahay number of average shayga u baahanta inta uu yahay oo loo qaybay guud ahaan maxaa u baahanahay cagaarka greenka u baahanahay marka inta green ah u baahanahay waa average outcome kaaga waay waxaan qaybin doonaa guud ahaan okay marka waxaan ku xisaabi karnaa simple way araba inaan soo saaro janiska aan ku heli karo kubad cagaar ah probability of successful selection green wuxuu leekaan doonaa inta green ah oo loo qaybay all you see all total kaaga okay imisa cagaar ah laba cagaar ah imisa guud ahaan sideed waa muxuu noqday laba qaybi hal laba qaybi afar muxuu noqday hal afar loo qaybi muxuu noqday eber dhibic 25 muxuu noqday 25 boqolkiiba oo maxaa leeyahay marka waxaan leenahay fiiri in sideed kubadood oo meel ku jira inaan gacanta gashto aan ku guuleysto kubad cagaar ah boqolkiiba 25 waa boqolkiiba 25 maxaa naqaanay waxa u dhaxay 0 ilaa 1 25 xagee waay xaggaas waay muxuu u dhawaaday eberka marka waxaan dhihi karnaa waa chance aad u yar haddii loo fiiriyo maxay chance because boqolkiiba 25 ayaa suuragal ah inaan ku guuleysto kubad cagaaran maxaa soo haray
boqolkiiba 75 waxaa laga yaabaa inaan waayo marka kaasoo kale waxaa dhigtaa waa riski marka asi muxuu qaatay even number oo qaatay laadhuga haddii la tuuro maxaa suuragala dhaban iyo kisimo lix weji waaye laakiin saddex weji waa dhaban saddex wejina waa sheeg waa kisi waaye dhabanka yaa waaye waa 2 4 6 dhaban waaye 1 3 5 kisi waaye marka wuxuu rabaa haddii aan laadhuu tuuro wuxuu noqon doonaa jaaniska aan ku heli karo dhaban maxaa haysanaa saddex dhaban ah saddex kisi ah kaas wuxuu noqday 50-50 waa chance isla gool waxaa suuragal ah inaad hesho iyo inaad weyso because waa equal chance waa saddex dhaban waa saddex kisi waa maxay at that time waxaan dhihi karnaa yani eventkaas kale waa 50-50 waa outcome-kiisa soo ma